in ka badan 150 qoys oo kamid ah dadka ay saameynta xoogan ku yeesheen abaarihii kala dambeeyay ee dalka soo maray ayaa deeq iskugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan loogu qaybiyay gudaha degmada Garadag. deeqdan raashinka ah oo ay la soo baxday muxsinad kamid ah qurba joogta degmada Garadag oo ku sugan cariga Imaaraadka Carabta oo deeqdan sanad kasta ula soo baxda sidii ay ugu taakuleen lahayd dadka jilicsan ee aan tahli karin inay iibsadaan. waxaana deeqdan raashinka ah wakiilka ahaa Bare Cabdullaahi Maxamed Hori oo subaxnimadii hore saakaasi habboon u gaarsiiyay 150 qoys oo kamid ah dadka jilicsan ee degmadaasi ku sugan. ugu horeyn waxaa halkaasi hadallo iskugu jira ducooyin mahadnaqa ka soo jeediyay qaar kamid ah dadkii la gaarsiiyay deeqdaasi. ilaahay dadkii keenay ilaahay ha barakayo, dadka nasiiyana ilaahay ha barakayo, caafimaad sarca ilaahay ha siiyo, ilaahay risaaqadana ha noo soo kordhiyo, ilaahay ha barakayo, iinantana ilaahay ha barakayo, cadaabka ilaahay ha ka xoreeyo, ilaahay jannadii rooda iyo raxmo ilaahay ha geeyo, ilaahay ha barakayo. alle ku barakeeyo eedo wikuwina soo yaabileena soo diray carfi iyo caafimaad ilaahay ha siiyo, janno fardowsa ilaahay ha ka waraabiyo, janno fardowsa ilaahay ha ka waraabiyo, janno fardowsa ilaahay ha geeyo, carfi iyo caafimaad ilaahay ha siiyo. waan ugu mahadnaqaynaa qoladii soo bixisay walaaltinimo islaamnimo annana waanu ka guddoonnay wayna soo gaadhay. waanu ugu mahadnaqaynaa ilaahayna halkay ka soo saareen wax khayr qaba Allah u geliyo, wax khayr qaba Allah u geliyo, sharkana Allah ka dabaal, khayrkana Allah siiyo, mas'uuliyadda Allah la hareer mariyo, annana dhaacana shufaa Allah nooga dhigo, mas'uuliyadda Allah na hareer mariyo, cirkana ma yar khayr qaba muska waraabsa ilaaha deeqda bixiya. dhankiisa waxaa isna halkaasi ka hadlay Bare Cabdullaahi Maxamed Hori oo wakiil ka ahaa deeqda raashinka. halkan waxaan ku bixinaynaa raashin ay soo bixisay Aamina Caanoole oo joogta Abu Dhabi iyo caruurteeda ayaa soo bixiyay. waxaan u qaybinay marka dadkii jilicsanaa ugu jilicsanaa reer Garadag ayaan u qaybinaynaa. waxaa ku jira dad kale oo barakacayaasha karajarka ayaa ku jira, iyagana kaamka karajarka ayaa iyana qaar kaga jiraan. marka raashinkan wuxuu ka kooban yahay bariis, sonkor, saliid, timir, sareen. raashin aad u fara badan maaha, laakiin waxa weeyaan wax badan ayay u taraysaa dadkoo aad u jilicsanaa awgeed xilliga oo xun xilli abaara lagu jiro. dadkoo aad u jilicsanaa dadkoo ka mid ah dadkii xooluhu ka baxeen magaranaysa barakacayaasha ahaa ee caydhoobay ayay u badan yihiin dadkaasi. sidaa daraaddeed marka waa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. waana rabadaan, xilli rabadaan waa xilligii ugu wanaagsanaa ayay ku soo beegmay raashinkani oo ah xilli ramadaan oo abaare ay jirto oo ay jirto dhibaatooyin kale iyo marka ugu mahad celinayaa Aamina Caanoole iyo dadkii iyo caruurteeda ayaa soo baxsaday. marka aniga ayay wakiiliga soo dhigatay, sidaa daraaddeed ayaan u qaybiyay dadkii aan u bixiyay. jazakallahu khayr ayaan leeyahay. raashinkan markii ugu horeysay maaha, xilliyo fara badan ayay soo dhiibi jirtay, weliba gaar ahaan xilliga rabadaanta. ومحمد قنبري بلشة TV دق مدى Garadag.